ninkaas waa nacamleeye kow ninkaas iskuma kalsoona ninkaas reerkeena ma jecla ninkaas wuxuu isku maleeyaa qabiil uusan asaga ahayn oo ay kala jeedaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتكم حرم برتيدا يوتيوب كمال والبا أو الدنيا كجوكتان هذي مال إذن تاينا مال وناكسن هذي هبين إذن تاينا هبين وناكسن انتا كدب ما انتا يوحان ربا إنان كتشوابو موقال عن هذا كهر صور ديغي انتي لوغو دي جري بيشا بركيسان اي رمضان برتيدا تيك توكا muuqaalkaas oo dhaliyay doodo badan muuqaalkaas oo kiciyay dad badan shuxuurtooda sidoo kale dad badan ay ka hadleen qaarna ay uga hadleen negative qaarna ay uga hadleen positive ayagoo Ayuub Kaarla ah ama Ayuub Axmed Xuseen oo ah qofka soo dhigay muuqaalkaas bartiisa TikTok ah waxaan idinkaga jawaabayaa sababta aan muuqaalkaas u soo dhigay barteeda TikTok waa tahay haddaba muuqaalkiina aragto horta waa laga yaabaa inaadan arkinna waa laga yaabaa in muuqaalkaas wax ku saabsan sheeko ahaan aad ku maqashana waa laga yaabaa intaba waa laga yaabaa muuqaalka aan dib idiin xasuusiyo horta baldaawada aniga oo Ayuub Kaarla ah oo hawiye ah kana ah duble qabiila lii dhibaatay qabiil ayaa lii dhibaatay dad badan oo TikTok jooga oo Soomaali ah oo aniga qabiilkayga ah waxay necab yihiin mar walba oo ay sheegaan inaysan jecleen Ayuub Kaarlo anigana ma jecli dadkaas been ilaahay caay sababta aan u jecleena waxay tahay waxa waaye aniga waxaan kamid ahay ciyaalkii ku agoomoobay dagaalada sukeeye ee dalka socday sida awgeed ayaan u jecleen cidii aniga agoon iga dhigtay dabcan haddii aad daawato muuqaalkaas ama aad kamid tahay dadkii ka falceliyay comment ahaan uga falceliyay ama video ahaan uga falceliyay marka koowaad waa mahadsan tahay marka labaadna waxaan kuu sheegayaa walaal ama walaalay sababta aan muuqaalkaas aniga u soo dhigay barteeda TikTok xilligaas ayada ah oo aan u soo dhigi waayay waa hore oo aan uga hadli waayay waa hore waa tahay aniga oo Ayuub Axmeda sida aad muuqaalka haddaba ku daawatay waad ka warqabtaa inaan ahay nin asagoo yar ilaahay ka watay aabihiis laakiin inaan aniga gocdo oo dhimasho ama geeri dhacday 22 sano ka hor aan ka hadlo ayaan rabaa inaan kuu sharaxo waa tahay aniga intaas oo sano oo aan aamusnaay waa ogaay in aabahay oo dhintay waa ogaay in aabahay qof dilay waan ogaay qofka aabahay dilay cidda uu yahay laakiin ma sheegin Soomaa waa tahay waxaan u sheegi waayay intaasoo sano oo aan uga aamusnaay oo aan video u soo duubi waayo ma garanaysin waa inaanan uqdad qabin qabiilna u qabin qofna uma qabo uqdad intaasoo sano ma aamusnaay horta marqaatimo ka tihin intaasoo sano aniga uqdadna ma qabin qabiilna ma necbeen mana noqon karo shakhsi ahaan nin uqdad qaba haddaad i taqaano oo live ii taqaano iyo haddaad social media iga taqaanaba shakhsi ahaan ma ihi nin uqdad qabi kara waa tahay reer ahaan haddii la yidhaahdo reer ahaan maba ihiba nin uqdad qabi kara waa haddaad reerkayga caadi u taqaano oo aad og tahay cidda ay yihiin reer ahaanna uqdad uma qabi karo shakhsi ahaanna uqdad uma qabi karo waddan ahaanna waddan markii la yidhaahdo Soomaali ahaan uqdad uma qabi karo maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed ilaahay waa oo sharfay oo wuxuu ka dhigay dad muslima oo iimaan leh intaasba
waa oo uqdad uma qabi karo ilaahay qadarkiisa. qofka ilaahay asagaa adduunyada keena, asagaa irsaaqa, asagaa muslim ka dhiga, asagaa awlaad siiya, asagaana ka wata. awlaadda uu qofkaas siiyana asagaa agoon ka dhiga. haddaba taa ogaada. marka intaas waxaan sharaxayaa uqdadda. soo miinaan fahmin. waa tahay fiyowga sababta aan marka aniga u soo dhigay oo aan xilligaas usoo dhigay ayaa waxay tahay dad muslima marka koowaad muslim ah, marka labaad soomaali ah, marka saddexaad aniga qabiil markii la yidhahdana aan isku qabiilnahay, hayb saaxiibtinimo markii la yidhahdana aan isku dhowna. fa aniga waxay ugu maageen maadaama aan diiday inaan ka hadlo ama aan ka qayb galo loolanka ama xamaasadda tiktok ka jirta ee qabiilka ah. waa iga dabuureeyeen markii ay arkeen inaysan imari karin bay waxay sameeyeen waxyaabo aan hadda diidayo inaan meeshan ka sheego ayay sameeyeen. waxyaabahaas aan diidayo hadda inaan meeshan ka sheegane waxbaan ka xusayaa, sida kolba sidaad u taqaano adaa og oo ay kala jeedaan. dadka sidaas yeelaya laakiin qabiil ma aha, qabiil ma aha. waa saddex qofood qabiil ma noqon kartaa? 1 2 3 qabiil ma noqon kartaa? ma noqon karto. marka qof bini aadana aniga maalin walba qof idulmanaayo uma dulqaadan karo. waxaan ku qasbanaaday anigoon dulmin dadka kale, anigoon aflagaadeyn, anigoon ku xadgudbin dad islaameed oo muslima, baan saddexdaas qofoodoo dee nacasyada ah wax kale kuma tilmaami karee qabiilna ma matalaani baan u jawaabay. waxaa idhi waa sax, fiidiyowga sidaa ka arkaysa. aniga ma necbi soomaali, ma necbi qabiil. macnaha markaas ayada ah dadka aan la hadlayo aniga waa 3 qofood, laakiin waa 3 shaksi soo maaha. aniga marka maxaan ahay? shaksi. 3 qofood ma doonayo inaan magacooda sheego, maxaa yeele waxaa waaye isqabqabsi badan iyo aflagaado badan iyo dagaal badan iyo buuq badan iyo waxyaabahaasaa dhalanaya. waa ogahay dad badan oo aniga taageero oo ii dhintay inay jiraan, laakiin muhiim maahan inaan idiin sheego. laakiin waa 3 qofood. 3daasaan u jawaabay. waxaan idhi haddiinaan ijecleen anna idinma jecli. xitaa waxaan u raaciyey wax aanan weligay afkayga ka sheegin baan 3 qofood u sheegay. qaarkood maqal bay ku maqleen, qaar waxa waaye meelaha kale dad ogaay waa jireen. laakiin waxaa idhi haddaadan ijecleenina oo aniga aad ifaquuqaysaan oo aad isikinaysaan anna idinma jeclidi ma idinkaa idhalay. ma baryi maayo, ma baryayo. haddii iinan ijecleen adinka anigana idinma jecli, soo gar maaha. waa tahay maxaa laga dhiga marka? waa uqdadaysan yahay. aabihiis barona la dilay, giftiu ku raadinayaa, toogsi buu wadaa, dad buu lacag kaga rabaa. suurahaas waa wax uu maaragtay soo dhoodhoobay, waa baahan yahay. ilaahay baan kugu dhaariyey adiga daawanayo, ma ninka diiday inuu qabiil u ciyaaro ee sharaf iyo lacag markii la soo agdhigay sharaf qaatay miyaa lacag ku raadinaya geerida aabihii? maya, kuma raadi karo. waana ka weynaa, am greater than taas. waa ka weynaa, alxamdulilah, waa ka weynaa. ma ihin noocaas. aniga hal maraa xishoodaa, wallaahi been idima sheegayo. haddii aad i taqaano adiga oo shaksiyan ii taqaano dabcan waa fahmay. hal maraa xishoodaa.